So videogan waxaan ku tusi doonaa qaabka loo sameeyo website 10 daqiiqo gudahood. So website-kan dhisi doono intaan buu ekaan doonaa. So kani waa website-ka markaas aan dhisi doono. Kood hore waxaan ku tusi doonaa marka ugu horeyso si loo helo markaas domain name ku gaar ahaan. Markii xigta waxaan ku tusi doonaa qaabka loo edit gareeyo ama loo hagaajiyo page walba ama qayb walba oo website-kaada ka mid ahan. Okay. Haddaba marka si aan website-kan u dhisno, kaliya waxaan qaadaynaa 3 talaabo. Talaabada koowaad waa inaan helno domain and hosting. Domain iyo hosting waa labada waxyaabood ee u baahanaa si aan website-kan u launch gareyno. Domain-ku waa magaca website-kaada, hosting waa goobta faylasha website-kaada ku xigtan yihiin. Haddaba si aad u hesho kaliya waxaad ku dhufataa link description-ka video-gan. Okay. Markaad ku dhufato page-kan ayuu ku keenayaa HostGator waa meeshaan ka heli doono hosting and domain. So si aad markaas u bilowdo kaliya waxaad ku dhufataa get started. Kadibna markaas waxaad ka sii doorataa saddexdan balan mid ka dooro. So hadda waxaan ka dooranayaa midka koobaad oo loo yaqaan hatching plan. So meeshaan waxaad gelisaa step koobaad magaca website-kaada aad u rabto. So waxaan dooranayaa magacaani. So kadibna extension dooro .com. So .com iska dooro maadaama ay tahay mid common ahaan. Kadibna marka meeshaani waxaa u jeedaa inaan domain name-keenu uu hal sano free u yahay aan la heli karo. Marka labaad meeshaan hubi inaad tick ku saaran tahay sababta wuxuu ka ilaalinayaa inaad markaas website-kaada Gmail iyo waxyaabo iskaga soo dhacaan. Numberka labaad waa inaan markaas aan balankan soo doorano oo markaas ahaa package-ka loo yaqaanay hatching. Waa inaan markaas aad hubsaa marka xigta inta bil aad rabto markaas inaa website-kaani uu markaas aad lacagtiisa bixiso. Aniga hadda 12 bil ayaan ka dooranayaa. Okay, marka saddexaad waa inaan HostGator account ka dhex abuuranaa. Marka waxaad gelinaysaa kaliya Gmail-kaada. Sidoo kale waxaad gelinaysaa Gmail-kaada ayaa mar kale ku celinaysaa. Kadibna waxaad gelinaysaa meeshaan password-kaada. So meeshaan wuxuu ku leeyahay 4 pin sameyso. So marka afraad wuxuu ku leeyahay waxaa gelisaa markaas your billing information and macluumaadka markaas lacag bixintaada. So kaliya wax kale ma aha waxaad gelisaa magacaada koobaad, magacaada ugu dambeeya. Sidoo kale midaan waa optional iskaga bood. Meeshaan waxaad gelisaa phone number-kaada caadiga ahaan aad haysato. Sidoo kale intana waxaa gelisaa address-kaada ama meesha markaas aad degan tahay. Okay, marka saddexaad waxaad ka sii doorataa wadankaada. Kadibna waxaad ka sii doorataa magaalada aad markaas joogto. Kadibna waxaad ka doorataa gobolka. So marka ugu dambeyso zip code-ka meeshaan non ku qor maadaama aad Soomaaliya wax zip code markaas aysan lahayn. Okay, meeshaan waxaa gelisaa marka credit card-kaada macluumaadkiisa haddii aad rabtana PayPal oo ku bixin kartaa. So kaliya geli magaca saddexda magaca kugu qoran credit card-kaada. Kadibna waxaad gelisaa credit card number-kaada. Kadibna waxaad gelisaa meeshaan CVV code-ka. Waa saddexda number ee markaas kugu qoran Mastercard-kaada caadiga ahaan. So marka ugu dambeysana waxaad gelisaa expiration date waqtiga markaas uu card-kaada dhacayo. Okay. So markaan step-kan waxaa u jeedaa meeshaan lacagta nagala qaadi doono inay tahay markaas ku dhawaad $62. So haddii aad rabto lacagta inaad iska yareyso waxaad kaliya isticmaashaa promo code-ka loo yaqaan webdhis halkaas geli kadibna meeshaas ku dhufo. So waxaa u jeedaa sanadkii oo dhan marka hadda in website-keena markaas uu qadka inoogu jiri doono $47. So marka ugu dambeyso meeshaan tick saar kadibna waxaad dhahdaa check out now. So inta ayuu keenayaa so markaas waa maxay kadibna hoos soo deg waxaad ka doorataa meeshaan ku qoran tahay escape iska dheh. Kadibna inta ayuu keenayaa so close iska dheh. So kadibna waxaad dhahdaa install WordPress. Kadibna waxaad dhahdaa install now. So marka meeshaan waa site setting-kaada meeshaan macluumaad markaas geli. So meeshaan waxaa gelisaa magaca website-kaada. Sidoo kale waxaa gelisaa description-kaada website-kaada macnaha maxaa uu ku saabsan yahay. Okay. So meeshaan uu ku leeyahay marka admin account so account-ka abuur. Sidoo kale isku day inaad meeshaan hadhow xasuunaad sababta login baan ku leenahay. So username iyo waxaad u samaysataa password aad mar walba hadhow ku gasho. Kadibna waxaad gelisaa meeshaas Gmail-kaada markaas. Okay. So marka intaas dhameyso soo deg kaliya waxaa ku dhuftaa meeshaan ay ku qoran tahay install.
soo markaad waxaa ujeedaa in WordPress markaasi oo uu noo soo degayo soo iska sug. soo intaas kadib marka uu noo soo dego waxaa ujeedaa markaasi website-keena inuu marka hadda uu live yahay. soo haddii aan tijaabino linkigan aan markaasi tab cusub aan ka furno kaliya linkigaas ku dhufanaysaa. soo waxaa ujeedaa marka hore inuu ku leeyahay your connection is not private. oo maxaa laga wadaa marka? wax kale ma aha, website-kaada ayaa waxay tahay inuu propagation sameeyo. Propagation wax kale ma aha, magaca markaas aad iibsatay ayaa hostgator waxay u qaadaysaa dhammaan sarfarada markaas dunida ka jira. hey qofkaani magac cusub ayuu iibsaday ama domain ayuu iibsaday. soo inaad magacaas new domain iibsatay uuna jiro ayaad gaarsiinaysaa. marka laga yaabo inay qaadato ku dhawaad 20 ilaa 30 daqiiqo. soo mar walba soo laabo refresh dhe. okay marka hadda haddii aan fiirino muddo daqiiqada kadib, soo waxaa ujeedaa marka hadda in website-keena oo markaas internetka live ka yahay cid walbana markaas soo access gareynayso. soo hadda haddii aad rabto inaad marka dashboard-kaada aragto qaybta WordPress kaliya waxaa dhahdaa /login. soo /login marka aad dhahdo kaliya meeshaan waxaa gelisaa username iyo passwordkii aan kasoo dhex abuuranay markaan soo dejisanayno WordPress. kadibna waxaa dhahdaa login. soo markaa intaas sameyso meeshaan ayuu ku keenayaa markaasi oo loo yaqaano backend-ga, waa meesha markaas ay ka maamulaysa WordPress. okay soo step-ka labaad noo geey oo markaas inaan soo dejisano theme. soo theme soo dejista kaliya ku laabo markaasi dashboard-kaada waxaad ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay appearance, kadibna waxaad ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay themes. okay soo marka themes ku dhufto waxaad ku sii dhuftaa meesha ay ku qoran tahay add new theme. kadibna meeshaan waxaa gelisaa theme-ka aad rabto marka magaciisa. soo kaliya waxaa ku qortaa meeshaan Astra maadaama uu yahay theme markaasi iska easy ahaan. soo kadibna waxaad ku dhufataa install, kadibna waxaad ku dhufataa activate, kadibna get started, kadibna Elementor ka dooro maadaama uu yahay page builder-ka naga caawin doona inaan website-keena dhisno. okay soo marka intaan oo template oo ku siinayaa marka mid ka dooro. soo kan ayaan dooranayaa. soo markaad doorato intaan oo page ayuu ku siinayaa marka uu template-kan ka kooban yahay home about. soo page walba aad rabto kaliya ku dhufo. haddii aad rabto inaad hal page kaliya aana soo dejisato waxaad ku dhuftaa import home complete. maadaama anigu hadda aan soo dejinayo dhammaan waxaan leeyahay import complete site, kadibna su-aalahani ka jawaab. soo markaa ka jawaabto kaliya waxaa ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay next, kadibna skip iska dhaw kuwaan markaas iskaga gudub maadaama aysan qasabeen. soo hadda waxaa ujeedaa template-ka inuu noo soo import garame. soo waxaa dhahdaa markaasi view site. soo waxaa ujeedaa marka hadda haddii aan refresh garano in markaasi aan template cusub markaasi aan la soo degno markaasi. soo marka waxaan geysaa markaasi tabka saddexaad maadaama ha template-ka aan soo dejisanay kaas oo markaasi ah in markaasi aan edit garayno website-keena qayb walba oo kamid ah. okay si aad u edit garayso kaliya ku laabo website-kaada, kadibna waxaad ku dhufataa edit with Elementor meesha ku qoran tahay. soo inta ayuu keenayaa. soo wuxuu ku ogolaanayaa meesha inaad qayb walba markaasi aad edit garayso. kaliya qoraalka ku dhufo aad rabto inaad wax ka bedesho. soo kaliya ku qor qoraalka markaasi aad rabto. haddii aad rabto inaad markaasi ku soo darto qoraal waxaad ku dhuftaa saddexdaas dhibcahaasi, kadibna qoraal haddii aad rabto ama image soo kaliya soo jiid meesha aad rabtana ku soo drop garoy ama ku soo dhaydo, kadib marka halkaasi wax ku qor. soo haddii aad rabto bottom-kaani kaba soo qaad in markaasi maxaa lahay add label, kaliya bottom-kaani korta meeshaasi ku dhufo, kadibna waxaa dhahdaa right click kadibna delete. haddii aad rabto sila mid inaad bottom-kan color-ka iyo qoraalka bedesho kaliya qalinkaas ku dhufo, kadibna halkaas qoraalka aad rabto markaasi ku qor. okay haddii aad rabto inaad bedesho bottom-kaani color-kiisa kaliya waxaa ku dhufataa style meesha tahay, kadibna waxaad ku sii dhufataa meeshan ay ku qoran tahay typography. soo haddii aad rabto marka bottom-ka size-kiisa inaad weyneyso soo halkaas ayaad ka maamuli kartaa cabirkiisa. sidoo kale haddii aad rabto inaad markaasi maxaa lahay fartaani bottom-kaani aad wax ka bedesho kaliya meeshaas ay ku qoran tahay family horteeda fur. soo hadda farta waxaa ujeedaa inaa haysano default aan. soo haddii aad rabto inaad ka bedesho soo kaliya halkaas farta aad rabto markaasi ka dooro. soo hadda haddii aan fartaani doorto aan markaasi maxaa lahay aan farta ku soo daro waxaa ujeedaa marka inay fartaasi farteeda markaasi qoraalka isbedesho. haddii aad rabto inaad bottom color-kiisa bedesho halkaasi ku dhufo. soo kadibna halkaasi marka maamul color-ka bottom-ka. bottom-ka markaad dul imaado waxaad arkaysaa inuu color-kiisa isbedelaa. soo haddii aad rabto color-kaasi kaliya ku dhufo meesha ku qoran tahay hover. soo hadda waa madow, haddii aad rabto waa bedeli kartaa color-kaasi. soo hadda haddii aan dul imaano marka bottom-kaani waxaa isku jeedaa inuu jaalihii u bedelay.
isku bedel. Okay, soo marka la aragna sida loo edit gareeyo markaasi qaybta markaas sida loo bedelo sawirkan. Soo sawirku u bedesho kaliya ku dhufo calaamadahaas saddexda dhibcood kadibna style kadibna waxaad ku dhufataa meeshaasi select file soo image ka rabto soo qaado kadibna insert media. soo haddii aad rabto color sawirkan iftiinkiisa inaad yareyso markaas kaliya ku dhufo meesha ku qoran tahay background overlay kadibna waxaad ku dhufataa colorka meeshaasi. soo halkaan waad ka bedeli kartaa colorka markaas image ka backgroundkiisa. haddii aad rabto inaad ogaato sida website-kaada uu mobile ahaan uga muuqanayo kaliya waxaa ku dhufataa icon-kani kadibna meesha kore waxaad kasii doorataa mobile. soo website-kaada sidan ayuu ah markaas mobile ahaan uga muuqanaa. haddii aad rabto inaad fartaan yareys kaliya qalin ku dhufo style tag typography dhe kadibna halkaas size-ka markaas ka maamulo. Okay, soo sidaas ayaad markaas ku arkaysaa. soo markaa shaqadaasi qabatay kaliya waxaa dhahdaa update saa u save garaysa waxa qabatay kadibna waxaad ku dhuftaa markaas calaamadaas icon-ka saad u daawato website-kaada. soo haddii aan ku dhufano waxa ujeedaa wixii markaas website-keena aan ka bedelno dhan inay marka halkaan nooga muuqdaan. Okay, soo markaan aragna sideeba markaas aad u bedeli kartaa logadani. soo logada default setting u bedelna kaliya waxaa ku dhufataa meeshan ay ku qoran tahay customize markaa ku dhufato kaliya qalinkaasi ku dhufo kadibna waxaad ku dhufataa change logo meesha ku qoran tahay. soo kadibna waxaa dhahdaa markaasi upload file select file kadibna logada soo qaado open dhe kadibna waxaa dhahdaa markaas select. Okay, soo logada markaas yaree ku aadi markaad ku aadiso soo kaliya waxaa dhahdaa meesha ku qoran tahay crop image. soo seeba u bedeli haddana markaas logada hoos kasii muuqato saa u bedesho change logo ku dhufo upload file select file soo logadii isla iyadii kusoo celi markale haddana choose logo dheh soo labada jeerba markaas soo qaado. soo hadda marka waxaa ujeedaa in logada markaas isbedesho. haddii aad rabto logada inaad yareyso kaliya logo width meeshay ku qoran tahay ka maamul cabirka markaasi. haddii aad rabto inaad mobile ahaan ugu dhufo aad ugu daawatana halkaas ku dhufo kadibna markaas halkaas kasii maamul. soo sidaas ayaa markaasi ugu maamuli kartaa mobile desktop si la mid ahna sidaan markaasi maxaa lahaay ayuu dhiskaba ku muuqanaa. sidoo kale mobile-kaadana sidaan ayay markaas ku muuqanaysaa si la mid ahna tablet-kan haddii aad rabto midka dhexe ku dhufo tablet ahaan markaas sidaan ay website-kaadana u muuqanaya. Okay, soo markaa intaas qabatay kaliya waxaa dhahdaa publish shaqadaasa u save garayso. Okay, soo kadibna markaasi aan aragna marka xigta seebaa markaasi page lagu soo daraa meesha kaliya waxaa ku dhufataa menu navigation add item kadibna page dheh kadibna meeshaasi page-ka aad rabto magaciisa ku qor. Okay, soo page marka ku qorto kaliya waxaa dhahdaa add dheh kadibna waxaa dhahdaa markaasi add item. soo saa ujeeda hadda meeshaan waxaan kusoo darnay page cusub. soo haddii aad rabto page-ka inaad kala hormariso kaliya kortag ee kor u jiid midka aad rabto. haddii aad rabto lacala inaad is hoos dhigto oo drop down aad samayso kaliya page-ka dultag ee wax yar markaas dhinaca midigtaada u jiid. soo waxaa ujeedaa page-ka markaas inuu midkaasi hoos tagay hadhow. Okay, soo markaa intaas qabat kaliya publish dheh kadibna close dheh. soo marka saa ujeeda hadda meesha inaan page kusoo darna ayaa ujeedaa. soo markaan fiirina marka xigta sideebaa markaas aad u bedeli kartaa logadani marka qaybta footerka maadaama midda kore aan bedelnay midda hoose u bedeleyna si la mid ahan kaliya dashboard-kaada meesha tag halkaas ku dhufo. soo wuxuu ku geenayaa qaybta backend-gaada waxaad kasii doorataa meeshay ku qoran tahay appearance kadibna waxaad ku dhufataa widgets. soo markaa widgets ku dhufato meeshaan iska xirso saddex widget ayaan ku haysanaa. midka koobaad waa about us haddii aad rabto ku dhufan kartaa halka iska bedel. midka saddexaad marka kaliyana loogada kusii dhufo markaad dul tagto kadibna waxaad kasii doorataa meeshay ku qoran tahay replace image. soo waxaa leedahay upload file select file soo fileka aad rabto soo qaado kadibna markaad soo loogadaada soo qaadato waxaad ku dartaa markaasi add to widget. Okay, soo hadda loogada aan kusoo darno. soo markaa intaas qaabta kaliya waxaa dhahdaa update saa shaqadaad u save garayso. markaas haddii aan ku laabano qaybta website-keena kaliya meeshaasi tag. haddii aan tab cusub ka furno markaasi oo aan fiirino qaybta footerka waxaa ujeedaa loogada inay isbedeshay. Okay,
soo markii xigta aragna sidee ba u bedelaysaa site icon-kaasi kor kaaga muuqda maadaama hadda midkaas aan lahayn saa u bedesho kaliya customize ku dhufo kadibna waxaad ku dhufataa meesha ay markaas ku qoran tahay site identity okay kadibna select site icon kadibna upload files kadibna select file kadibna site icon-kaada soo qaado soo site icon-kaada kadib markaas soo qaado kaliya selected soo halkaas ku aad yaray markaasi soo markaad ku aadayso waxa dhahdaa kaliya crop image soo markaas waxa u jeedaa in icon-ka uu markaas hadda isbedelo okay soo u save gareeyo shaqadaada kaliya publish ku dhufo soo marka hadii aan tab cusub furno oo website-keena aan booqano waxa u jeedaa markaas website-keena qayb walba markaas inuu icon-kiisa isbedelo qayb walbana markaas website-keena kamid ah aan read garan soo sidaan ayaa markaas maxal lahaay website-kaada markaas qayb walba oo kamid ah uu markaas hagaajin kartaa soo hadda marka waxa ogtaa sida markaas maxal lahaay loo helo domain and hosting sida loola soo dego theme iyo sida loo edit gareeyo qayb walba website-kaada kamid ah soo bilowda marka dhisida website-kaada kaliya waxaad ku dhufataa link description-ka kuugu soo horeeyo